بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم habeen wanaagsan caawa sida aad garanaysaan qoladiina meediyada ama warbaahinta reer Puntland reer Soomaaliya intaba ka jooga halka waxa weeye 12 saac markay dhacdo waxa ka buuxa waqtigii 4 sano oo la doortay madaxweynihii dowladda federaalka Soomaaliya mudane حسن شيخ محمد بيكجب عاو أبي طبعا أرنتاس عن مغلي جري سوالف ترى هذا عيلنا وما قدنا عيدنا وما مقنا وهي درس صباح أنا عاو بإن النارية ملحوينا عصب بهيد ملحوينا حسن شيخ أفرسن حفيز كجوجي وعلو دي بالدستور وعلو دي بالدولتكم يلقاك اللي قصاري تاريخ اللي قصاري وقرنا إنسان labada kun iyo 12 baa laga saaray markii Garowe 2 lagu gudoomiyay halkan in nidaamka federaalka la qaato aqalka hoose sanadkaas lagu sameeyo 4.5 kii laga fujimay dadka qaarkii aqalka sarena oo noqdo 17 gobol oo ay ka kooban tahay dowladda Jamhuuriyadda Soomaaliya محمد سياد الله ونحرسته markuu xafiiska ka tagay wadanku ka koobna doorashadaas si ay ku dhacdayba aqalkii sare iyadoo oo dastuurka ku qoran yahay in wax ka doorto madaxweynaha ayaa xasan waxa doortay aqalkii hoose dastuurkiina waxba laga qalday madaxweynuhu ku noqday qaladkii doorashadiisa ku yimi baa weli Soomaaliya la socda afar sano ka bacdi oo la doonay dastuurka dib loogu noqdo dowlad goboleedyadii Soomaaliya ka koobnaan lahayd la dhameystiro la dhiso waxay ku dhamaatay habaan mansuura meel cidlaaba ka dhamaatay caawa oo ay tahay bisha September 10 ayay kaga buuxdaa 12 caawa madaxweyne xasan sheekh waynu xafiiska banaya bariis wax xilka ku wareejiyaa ra'iisul baarlamaanka waynu ku wareejiyaa sida dastuurku qabo meel gaarka qodobkiisa 91 afarta sano ka buuxdo qodobka 95 oo sheegayo in xilku ku wareegayo markuu xafiiska banayo ra'iisul baarlamaanka inuu ku wareejinayo ama ra'iisul baarlamaanka kale ku sii xiga ama kan kale ku sii xiga haddii ay cod daarto ra'iisul baarlamaanka speaker of the house oo soo madasha kamid aha haddii ka cod daarto waa inay ku wareegtaa hoggaanka baarlamaanka waa inay ku wareegtaa sidaan ka warhayno sagaalkii bisha 8 madasha oo ka kooban saddexda xafiis oo dowladda federaalka oo dhexe ra'iisul baarlamaanka madaxweynaha iyo prime minister oo executive-ka ah iyo maamuladii dowladda federaalka xubinta ka ah oo xamar isugu tagay waxay soo saareen warmurtiyeed doorashada say u dhacayso qeexaysa iyo muddo kursi loo sameeyay nimanka xilka haya xafiiska haya madaxweynaha iyo prime ministerka ilaa 30 October taasoo sharci darro ah ma sharci waafaqsanay baarlamaanka aan la geyn madashu waa maamuladii dalka koobnaa ama ahaada ku dowladda dhexe ama magaciisii laakiin baarlamaanka legislative ahaa wixii sharci baarlamaan la geeyay waxay ka shaqeyn kareen farsamo ahaan si doorasho lagu dhigi karaa sidee muxuu ahaayay wax loo maareyn karaa sidee kharash loo bixin karaa xagee la isugu diray oo idman yihiin laakiin sharci ma samayn karaa dastuurkana meel kama dhici kama bedeli karaa dastuurka ku meel gaarka dowladda federaalka Soomaaliya wuxuu qeexayaa artikalayaas aan idin sheegay sidaas maalinta xilka buuxo haddaan madaxweyne sharci imaan inuu xilka ku wareegayo guddoonka baarlamaanka ku wareegayo baarlamaanka lama kala dirin waa jooga si sharciga waafaqsan bay waxay yiraahdeen annaga baarlamaanka la bedeli kara power vacuum ma ogolin annaga wali sharciya haddii aan baarlamaan la soo dooran inta annaga mandatekiya ka hadhay oo ahayd 20 bisha hadda la soo dhaafo August hadduusan baarlamaan kale imaan annaga jooga inta baarlamaan kale marka iyaga wali sharciya taas aanu aaminsannahay
haddaanu nahay shacabkii haddaanu nahay mucaaradkii haddaanu nahay kandideedyada u tartamaya madaxnimada iyo hoggaanka dalka Soomaaliya aniga iyo ragga kale qaarna maanta xamar ka hadlayay horena ishu soo saaray madasha go'aankeeda maalinta waxaan ka soo qoray saaka warhaysaan meediyadana galay qoraallo baan ka soo saaray magaalada Garowe bishii 18keedii waan ka soo saaray laba madaxweyne u tartamayaal baan halka ku ahayn maalin ka bacdi 12 August wala coalition for change anaguna aan ka midnahay waa ambareelada guud baayana soo saaray qoraalkaas ay go'aankaas 9 August lagu kordhinayay xilka xafiis hayayaashii political opposition party nimanka la baxay iyaguna xamar jooga oo coalition for change ka mid iyaguna 13 qoraal soo saareen ka bacdi 19 mid loo dhan yahay baan soo saaray waan u qoray qaramada midoobay golaha ammaanka iyo beesha caalamka guud ahaan waan ku wargelinayno sharci darrada ka jirta halka iyo in sharciga loo soo noqdo intaasoo dhan macluumaadka ka bacdi maanta waxaa ka hadlay iyaguna xamar yimi qoladii axsaabta xamar joogtay iyo qoladii Nairobi joogtay isku soo darsameen waxay isugu yimaadeen xamar waxay soo saareen oo sheegeen in Xasan Sheekh madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya xilka caaw kaga buuxo subaxii waxaa loogu yeerayaa haddii waagu bariyo madaxweynihii hore ee jamhuuriyadda federaalka Soomaaliya sidoo kale madaxweynihii hore dowladda Puntland oo federaalka ka mid ah saas loogu yeeray isku title baan noqonaynaa nasiibkiisa doorashadii dadbanayd oo ay ku dhawaaqeen bisha 9keedii wax talaabo ah oo wali hore loo qaaday ma jiro 9 August imsa laga joogo bil iyo maalin baa laga joogo wax talaabo ah oo shaqo ah oo socota ma jirto anagu ma arkayn doorasho dadban waxaan u arkaynaa kororsimo dadban xafiiska lagu sii joogo waana muuqataa haddii xamar hadda waa la joogay maanta delegation-kii Puntland madaxweynihii Puntland hogaaminayay markay soo kici gaareen dabadeedna waxaa la yiri bal waa loo yeerayo dib baa loo ceshay waxa hadda ka soo baxayna weli looma sheegin waa arki doonaa dalka crisis buu ku jiraa constitutional crisis laakiin dowladda Soomaaliya dadka Soomaaliyeed yaa bas 26 sano dowladda waa joogeen maamulana waa u dhisan yihiin inta ay dowlad lagu kalsoon yahay doorasho imaanayso doorasho kororsimo dadban aqbali mayno xilka ninka ha banayo ha u dhiibo guddoonka baarlamaanka ha u dhiibo anaga tashanayna beesha caalamkana waxyaalaha qaarkood oo faraha gelisay oo hadda wax badan qaldameen ha joojiso oo ah 4.5 oo dastuurka lagu jebiyay iyo heshiisyadii ummadda Soomaaliyeed ay gaadhay 18 February 2012 hanaga joojiso waxayna tarayaan uga baahannahay laakiin siyaasiyiin ama diblomaasiyiin iyagu xafiisyada ka yimaadeen u danaynaya iyo iyaga xafiiskooda iyo kariirkooda oo anaga boog intay noo dhayaan hadhow meel cillaan nooga tegaya waxba danteena ma hayaan Soomaaliyada danteeda isu og waxba kala gaari mayaan way tashan kartaa 4 sano oo khasaare ah 4 sano oo NGOism-ka aan dowlad iyo institution hay'adaha midna xoog la saarin 4 sano oo biliqa ah oo hantidii maguursada ahayd oo dowladda Soomaaliyeed oo ay ka dhaxashay isticmaalkii ilaa dowladii iska dameeyay ilaa tii maxamed si ugu dameysay la xaraashay intii badnayd la xaraashay caawa wax sharci oo loo maray soo baarlamaanka joogo baarlamaankii oo laga talaabsaday oo functionkiisa oo dhan la tuuray iyagoo wax khilaaf ka jirin ka bacdi markii ay madaxweynaha ku eedeeyeen khiyaano qaran oo la dhex galay gacan ka hadal iyo faragelin iyo kala dulaal iyo malaal la dhex galay haddana wuxuu dhismi waayeen nidaam qabaliya aan horay uga afeefanay oo aan wax badan ka hadlay inuu dad kala qaybiyo wuxuu keenayaa ma jirto nidaam qabaliya waa kii 13 leegada haddana xafiiskay ku dhagan ay ka tanasuleen oo Soomaali ka dhaadhiciyeen oo dowladnimada lagu gaaro dib u noqosho waxa hadda laga bixi waayay waxa leeyahay aqalka sare reer baa inta helay kuwa kale inta helay wareede adduunka waxa lagu dhaqmaa qaynuun
sharci islaamiya oo sunnaha iyo quraanka waxa ku yaala la raaco ama xeer dadku degsado oo aan khilaafsanayn iyaga anagu xeer baan qoranay xeer baan degsanay xeer dowladnimo hal lagu dhaqmo wuxuu sheegayaa qodobka 72 ee dastuurka federaalka ku meel gaarka xildhibaanada aqalka sare oo lagama maarmaanka waa 54 aqalkaas waxaa la yiraahdaa the House of the Federation of Ghana waa aqalkii baarlamaanka dowladaha ka mid ah xubinta ka dowladda dhexe waa aqalka ilaalinaya ee xuquuqdooda ilaalinaya 54 18 gobol baa ku salayn waagi halka lagu shiraayay oo hoggaanka la gaaray madaxweynihii ku meel gaarka ah dowladda federaalka Soomaaliya waqtigaas Shariif Sheekh Axmed guriga hadda caawa shirka jaraa'id ku qabtay buu deganaa gurigaana ra'iisul wasaaraha deganaa guri halkaana oo kale waxa deganaa ra'iisul baarlamaanka saasaa loo heshiiyey 18 gobol 18 isteedna waa noqon karaa haddii lagu heshiiyo 18 gobol marka la yiraahdo Muqdisho baa ku jira laakiin haddii la yiraahdo 18 gobol 18 isteed haddii la yiraahdo 8 isteed ama 6 isteed inta isteedyadu yihiin Muqdisho markaa kuma jirto loo isteed maaha waa sababta aan dastuurka loogu qoray hal qeexo maqaamka caasimadda wadamada federaalka sida Australia kale Canberra America Washington Ottawa Canada anigu aan aqaano nidaam dhismoodkooda dawliga caasimadaha territory baa la yiraahdaa mayor baa xukuma nidaamka federaalka kama mid noqda laakiin dawladaha ugu yar oo federaal ka mid ah xildhibaanada aqalka sare isku inbay leeyihiin waa ku qoran tahay dastuur madashu waxay ahayd labada mid ay qaadato oo ay dadka ugu faataxayso shaqada la bilaabo reer baa inta dheer reer baa inta laga dhigo kana lagu daro inflation aan joogsanayn inflation lacageed baanu la ciirsanayn inflation qabiil oo baanu saguna awal ka soo kabanayno ka soo soconay inflation madax iyagu qabiil isu diriraayo isu haysanayaan naba midlaan noomana maqna mana naga wakiilaha laakiin nasiib waxaan ku leenahay biriba Carafa ummadda Soomaaliyeed halkaan waa wada gaaraya kuwa Carafa taagan hay u soo duceeyeen kuwa Soomaya biri oo Carafa ha duceysteen aawa hal la duceysto in Ilaahay naga hor dhaqaajiyo kuwa hadda meesha jooga oo Xasan Sheekh naga hor dhaqaajiyo iyo kuwa raba inay xafiiska wali madaxtooye dib ugu soo noqdaan iyagoo isticmaalaya hanti dawladeed iyo awoodda dawladda iyo amniga iyo ciidankii iyo wax walba iyo influence-gii mid walba isticmaalaya Ilaahay Soomaali u dhiibo cid ka naxaysa oo waxa ay u baahan yihiin fulin karta oo Ilaahay la kaashata oo nabadgelyo ku soo waarta oo dadka dib u heshiisiin u samaysa oo kuwa xataa wax qaxinay wax dilaayo albaab u furta laga soo noqdo oo rajo gelisa in dadkooda dib uga noqon karaan oo aamini karaan haddii kale inta cid ciil qabto waligood ka ciil qabaaya ku biiraya dhibaataduna waa sii soconaysaa ummadina waa dhamaatay maanta waxa arkayay qolooyinkii xamar joogay oo kamid ahaa coalition for change ururkayga qaybta xamar isugu timi oo wadooyinka xamar kaligood lugaynaya iyagu waa liibaaneenoo hotel bay ku xiraayeen oo exercise bay heleen ba kaligood soconay maanta waa lugaynaya laakiin waxa la yiri gaadiidka baa loo diiday wadooyinka maray gaadiidku dhawaan maray maalmii ciidda lagu jira haweenkii caruurtooda xusoo gadan lahaa waalidkii odagii shaqo tagi lahaa dadkii isu laalaaban lahaa suuqyadii dadka ganacsiga ahaa badeecada keenay qofkii jiraan isbitaal la geyn lahaa meel la baro mal waxa la magaalooyinka waa la xiray mise xiraani magaalada maxay tahay magaalada saa loo xiray hadda maxaa shirka loogu qabanaya hadday basaas tahay ma joogtaa qiimaha ma ku kacaysa ma joogtaa in dadkii Soomaaliyeed lagu ciqaabo magaalada xamar sida loogu ciqaabo in shirciga lagu qabto meel kale lagu qabto dawlad goboleedyada mid lagu qabto oo midga la qabto waxaan u maleeyahay magaalahan waxa ugu yahay cadaadaha lagu qabto amaanka waa la soo karaa wadooyina la xiri maayo ha lagu qabto degal garow halka degal Kismaayo halka degal Baydhabo aeroportka madaxweynuhu joogaa wali aeroportka Baydhabo lagu qabto degal xalalaha lagu qabto dadka yaar bay ka soo degayaan dadka yaan la cadaabin marka cuqwadaas dadka loo geystay oo imaamihii Ilaahay barakeeyay kamid ah waxa moodeen meel ku dhacaya waxa waa soo baxay waana ku dhacaya wixii degeysatay annaga Ilaahay waxaan ka rajaynayaa inuu soo soo gaarsiiyo inta waxa geysatay kaliya ku koobo marka waxaan caawa u soo jeedinayaa ummadda Soomaaliyeed meel kasta ha joogeene waa galbatay midda soo socota ka fikira waxaana asaas u ah xildhibaanada aad soo dooranaysaa cid in masli ka dhaca
oo masiirka Soomaaliya ka saari kara oo kuwii markii 60kii xorriyadda la qaadanayay baarlamaankii ku jiray oo kale la isaga jiro ha ahaadeen dad maartay looga gamay karo masiirkiina uga gamay karaan uga seexan karaan oo inay masri kara oo inay dooran kara cid inay masri kara inay xuli kara doorta maanta jaansaysan waa odayaasha haddii kale sida arki jiray oday walba inta lala hadlo hebel ii soo saar ama qabiil buntiris ah intuu galo midaan waxaraha loo dirsan karin oo soo xirayo hageeyeen meesha idinkaana idinku soo noqonaysaa marka cirib dameed xumadu idinka iyo caruurteena iyo mustaqbalkeena Soomaaliya waxay noqon doontaa ilaahay naguma keene mid loo haro waxaan maqli jiray Soomaaliya ku ducaysatay ilaaha noo haray ilaahu Soomaali nasr u soo ilaahu dhibaatada ka saar ilaahu fariqeeba u ilaahu maalmihii barakaysnaa baan ku jiraaye naga aqbal ilaahu wixaan dib mooyee aan faa'iido noo hay naga horleex ilaahu naga horleex ليش شرح يا واحد مهتم بمجد 4 سنة وأنا مع سنتين السلام عليكم ورحمة الله لما أنتي لتصوّر دقيقة سنة بسم الله الرحمن الرحيم